iyadoo uu yahay khilaafka diblomaasiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Abu Dhabi waxa uu markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay waxyaabaha la isku hayo iyo mowqifka Imaaraadka ee ku aadan midnimada Soomaaliya wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Anwar Maxamed Qarqaash oo u warramay BBC-da laanteeda Carabiga ayaa sheegay inaysan wax shaki ah gelin karin midnimada Soomaaliya marwaa murtaasi ka hadlayayna waxa uu yiri تمت بتفاهمات واضحة مع الحكومات الصومالية السابقة والتفاهمات هذه كانت واضحة بأن الموقف السياسي هو دعم الصومال الواحد. نحن ما عندنا قنصلية في صومالي لاند، ما عندنا سفارة. arrinta dekadda berbera waxa ay ku dhacday isfahan cad oo aan la yeelanay dawladihii hore ee Soomaaliya isfahanadaasna waxay ahaayeen kuwa cadcad waxa ay hoos imaanayeen taageerada Soomaaliya oo mid ah inaga qonsuliyad kuma lihin Somaliland safaarad kuma lihin Somaliland xiriirna lama lihin iska badaaye waxaan kaalin fududeyn ah ku lahayn inaan kulanno u qabanno madaxda Soomaalida waxay ku kulmeen Abu Dhabi iyo Dubai kaalintayadu waxay ku koobneed fududeyn isfahanadu waxay ku qotomeen haddii aan aqoonsanahay siyaasadda Soomaali mid ah inaysan naga reebaynin inaan ka shaqeyno dhinacyada horumarinta gargaarka iyo kaalmada inaan Somaliland ka sameeyno إنسانية أو إغاثية وما إلى ذلك في صومالي لاند. Anwar Maxamed Qarqaash ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay arrinka khilaafka ka gasho wada hadallo furan oo aan qol xiran ahayn lagu sameyn sida uu hadalka u dhigay إذا في طرف يساعدك من 20-25 سنة وأنت عندك مسألة معينة تناقش فيها. haddii qofku kaalmeynay 20 ilaa 25 sano ay wax idin dhex maraan waa inaad kala hadashaa ma ahan inaad qabsataa diyaarad ay saaran yihiin 47 askari oo Imaaraadiyiin ah oo ciidamada tababaraya oo ku dhawaad 10 milyan oo dollar oo ah wixii ku baxayay ciidan badan oo Soomaali ah siday oo aad go'aankaasi qaadatay kadibna aad tiraahdo arrinta waxaan ku xalinaynaa qol xiran maya sidaasi hawsha kuma dhamaanayso waa in arrintu caddaataa لا تتم الأمور بهذه الصورة الأمور تتم بوضوح wasiirka ayaa intaa ku daray in mashaariic horumarin ah muddo badan ba ay ka fulinayeen Somaliland كان هناك تفاهم واضح التفاهم يقول بأن هناك سياسة صومال واحد ولكن في نفس الوقت صومالي لاند اللي هي في صومال بريطانيا القديم أيضا بإمكاننا أن نعمل في صومالي لاند من ناحية التنموية والإنسانية وما إلى ذلك. waxaa jiray isfaham cad oo dhigaya inaan leenahay siyaasad Soomaaliya oo mid ah laakiin iyada oo ay taa jirto haddana Somaliland oo ah Soomaalidii hore ee Ingiriiska inaan kala shaqeynay dhinacyada horumarinta bani'aadanimada iyo wixii la mid ah isfahamkaas waxa uu ka dhaxeeyay dhowr xukuumadood balse waxaan aaminsanahay wixii ka dambeeyay doorashadii ka dhacday Soomaaliya waxa la sameeyay isbahaysi ka mid ah isbahaysiyada ka samaysan gobolka saameyn ayuu ku yeeshay Soomaaliya tani waa mushkiladii afraad ee Soomaaliyada cusub na dhexmarto waxaan la kulannay mashaakil badan waan xalinay qaar waxay la xiriiraan sheegashooyin gaar ah qaarkood waxay la xiriiraan horumarinta dekadda berbera oo xaqiiqdii fursado shaqo iyo horumar abuuraya waa inta waxaan arkayno تنمية وما إلى ذلك فحقيقة اللي نراه هذا هو xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa sii xumaanayay tan iyo markii toddobaadkii hore ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ay muddo saacadaha hakiyeen diyaarad ka diiwaan gashaneed wadankaasi isla markaana looga wareegay lacag ku dhawan 10 milyan oo dollar haddaba arrimahan oo dhan waxay dhacayaan xilli Imaaraadka iyo Soomaaliya ay kala taagan yihiin waxaana la isweydiinayaa hadalkan cusub ee dawladda Imaaraadka ka soo yeeray maxaa keenay xilligan Ibrahim Bursaliid ayaa falanqaynaya بسم الله عتاش mahadsanid qarqaash warkiisa aad buu u caddaa waxaad moodaa inay soo jilceen haddana weli uu xanuunkii hayo diyaaraddii la qabsaday waxaa kale oo ka baxay in la isla gartay marka ugu dambaysa in marka la yidhaahdo cilaaqaad caalami ah ama maaliyad ama xuduud ama qadiyad taabanaya difaac amni wixii la mid ah ay xukuumadda dhexe iska leedahay bahaloobidan maamul goboleedada ay bahaloobeen ama hanaanka dawliga dalka ka maqnaa ku dhowaad 20 sano iyo siyaado macnaheeda ma aha in gobonnimadii Soomaaliya ay luntay in qaramada midoobay la isla aadi karo ururada kale caalamigaana way cadaatay waa gartay maxaa soo dabci marka hadalkaaga waxa ku jira way soo dabceen maxaa Imaaraadka soo dabci oo hadalkan ka keenay marka laga yimaado sida loola tacaamulay qabsiga diyaaradooda la qabsaday iyo cayrintii shirkadoodii DP World
ee caalamiga ahayd sida looga cayriyo dalka baarlamaanka Soomaaliya ula tacaamulay ka sokow waxa ubuc u ah soo dabcistoodan ay soo dabceen dacwadii rasmiga ahayd ee ergeyga gaarka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay isagoo magaca dawladda ku hadlay xukuumadda dhexe uu ka gudbiyay looga ashtakooday golaha amniga ee qaramada midoobay in arrinta Soomaaliya iyo imaaraadka ay soo dhexgalaan imaaraadkana la tuso jidcad si ay faraha uga baxaan arrimaha Soomaaliya marka dawladda Soomaaliya way sheegtay DP World ha baxday tiri imaaraadka wasiir dawlihi baa hadda hadlay maxaa xigi kara DP World ma baxaysaa oo inta ma ku filan tahay mise waxaad isleedahay way sii joogi doontaayo way ka shaqayn doonaan Puntland iyo Somaliland ba عطش لبا وثيقة ويبنايه وثيقة كود حوالين قوانين تعالمية لسي وضو oo aan wax diblomaasiyada lagu darin si qayaxana markaas ay banaanka ugu dhici karaan ayaguna xanuun dartiis aanay sidaas ku hareyno ay si qaribaan xukuumadda dhexe iyo xiriir kala dhaxay cilaaqaad ahaan maamul goboleedada iyo xataa maamulka Hargeysa wadiiqada kale ee banaan waxa weeyaan in dadaalkan ay Sacuudiga bilaabeen diblomaasiyada in hoos loo wada hadlo khasamayn qol wax lagu xirtay si waafi loo wada hadlo sidaasna gacanta xukuumadda dhexe loogu soo celiyay wixii waajibaado ay lahaydna ayada ka oofsato imaaraadkuna ay inay khalad istiraatiiji ah ka galeen jamhuuriyadda Soomaaliya